ornahantii si fiican loogu soo dhaweeyay marka aad iyo aad baan u jecelahay dadka reer Soomaaliland aad iyo aadna aan ugu faraxsanahay in ay na soo booqdaan jilayaasha caanka ee Sooraan iyo Jawaan Sooraan iyo Jawaan oo ay tahay markii ugu horeysay si rasmi ah u yimaadaan deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa ka mahadnaqashada Wajala loogu soo dhaweeyay tilmaamayna inay wadaan barnaamijyo kala duwan Soomaalida Itoobiya horta waxaan anagu filaynaa maadaama aanu ka nimi gobolka yagii Togdheer oo aan Soomaaliland u dhalay aan maantana ku socono dawladdan aan mushaarkanahay ee kilalka ismaamulka deegaanka Soomaalida gaar ahaan caasimadiisa magaalada Jigjiga soo dhaweynta aanu filaynaa waaba ta Wajala looga bilaabayba gebiga igu bika walba fursad waxaan sameeyay iska noqotaaba halkan abaanu ku raali garowliba Jigjiga waxa mas'uulina waaba waalan doonta hadii sidaas leeyahay soo dhaweeyo wallahi aad iyo aad baan u filaynaa in imika mafsuud xaq hore mafsuud sida loo sheegayo weligeed sano kale loo soo dhaweyn kulay taariikhda gali doonta insha Allah sidaan waa maanta waan iskoorkii ku daraba maanta noo dhigay iskoor baan jabinaynaaba marka xaqaana waa ku sii soconaa adigana aad baan idin soo dhaweynaya dhammaan intii naga hortimi haday maamultay haday wariyaashay haday telefishinka tay haday dhammaan dadkan waxaan leenahay welcome with open the hands waxaan leeyahay aad iyo aad u maasantiin amisti garaale aad iyo ah wixii oo dhamaan leenahay insha Allah hunadii xaqan magaalada madaxda Jigjiga ayaynu hadii Ilaahay ka dhigo isugu tagi doonaa wixii barnaamijyada lagu soo talagalay halkaas baan hadii Ilaahay ka dhigo aan ku soo bandhigi doonaa aad baan u jecelahay inaan gobolada oo dhan wada aragno intii aanu ka gaari karno waan tageynaa insha Allah hadii Ilaahay ka dhigo wadad aad iyo aadan aan u jecelahay kuna noo jecel wadad aan ka filayno soo dhaweyn wanaagsan wadad aan muddo badan u soo tacjiyay sidaan u tagi lahayn aan isku taxalluujinaynay sidii wariyaha haboon ugaas ay wareysiga hore naga soo qaaday ballanqaadkii aan ku sameeynay halkaas ayuun baan kaga dhabaynaynaa insha Allah waanu laboobi doonaa